وإذن سلام يا دمان انت dhageysanaysa waxa idinku salaamaya salaanta masiixa nabad iyo naxariista masiixa korkiina ha ahaato waxaan gaar ahaan u salaamaya walaalaha masiixa uu rajadoodu yahay inta kalena waan soo dhaweynaya because waxay qusaysaa masiixiyadda ay qusaysaa laakiin waad dhageysan kartaan inta rabta inay ka faa'iideysato waxaan leeyahay walaalaha masiixiyiinta rabbiga inoogu yeeray naxariistiisa iyo nimcadiisa ayaa mahadle kan ballan qaaday inuunan inaga tegi doonin inuunan ina dayrin doonin marka maanta waxaan jeclaystay inaan bilaabo silsilad ama mawduuc ku saabsan kumaan ku ahay masiixa because waxa waaye masiixiyadda ma ahan diin aa ka soo baxayso oo diinka la soo galayso masiixiyadda ma ahan diin islaaman ka soo baxay diin masiixan ku soo biiray ma aha masiixiyadda ma ahan masalan ashahaada la qiranaa islaam ku noqday sidaasoo kale ashahaadan qiranaya masiixi ku noqday ma aha ashahaada aa qirato masiixi kuma noqonaysid laakiin waxaa ku noqonaysaa masiixinimo iimaanka aad ku qabto masiixa oo aad ay rajadaadu ay tahay masiixa iimaanka aad ku qabto inuu dembiyadaada cafiyey inuu dembiyadaada u dhintay inuu ka soo sarakacay dhimashada uu ku siiyey nolol weligeed ah taas iimaanka aad u qabto oo qalbigaaga aad ka qabto ayaad afkaaga ka qiranaysaa mana ahan mawduuc asaga lasoo abaabulay oo sidan u dheh iyo sidan yeel ma ahan laakiin qirashada aad qiranayso waa iimaanka aad masiixa ku qabto oo aad afkaaga ka sheegayso yuu masiixa kuu yahay waa kuma masiixa adiga naftaada uu u yahay ma aha sida lagugu sheegay laakiin sida aad adiga iimaan ugu qabto ayaad afkaaga uga qiranaysaa waa inaa ogaataa in masiixiyadda ahayn gruub aa kusoo biirtay ama gruubo laakiin ay tahay jinsiyad aad qaadanayso ama ahaasho aad tahay kumaad tahay adiga marar badan marka nala weydiiyo kumaad tahay aniga ina hebelaa ahay aniga qabiil hebelaa ahay aniga soomaaliyaan ahay may fahmaysaa waxaa sheeganaysaa waxa qabato qoladaa ka dhalatay wadankaa u dhalatay laakiin marka aad masiixa u timaado kumaad tahay kumaad masiixa ku tahay ayaa muhiimadda ah inaan barano marka waxaan inoo sheegayaa aayado aan ka wada baran doono kan aan masiixa ku nahay marka all dadka ku cusub masiixiyadda oo soomaalida oo soo gashay waxaan leeyahay soo dhawaada masiixa idinku bilaabay shaqada wanaagsan isaga ayaa dhammaystiri doona waadna inta aad sii korayso oo masiixa ku koraysana waad baran doontaa midka aad masiixa ku tahay muhiimadda ugu weyn ayaa ah midka aad tahay inaad barato midka aad tahay oo masiixa ku tahay inaad barato marka waxaan ka bilaabaynaa kow masiixa waxaa ku tahay mid ka dhashay miro aanan baaba-ayn macnaheed qofka bini aadanka wuxuu ka dhashay isku tag nin iyo naag wayna baaba-aan oo dhimasha u dambeyso jir bay noqdeen way abuurmeen dhimasha u dambeyso laakiin adiga waxaa tahay mid mar labaad dhashay oo ka dhashay miro aanan baaba-ayn mirahaas oo ah ereyga ilaaha nool haddaa fiiriso butruska koobaad aayadda 23 waxaa ku arkaysaa waxaana jeclaan lahaa inaad soo qaadato bibalekaaga ama aad furato aabkaaga aad aqriso oo adiga aad fiiriso oo aad ogaato midka aad tahay masiixa ku tahay butruska koobaad cutubka koobaad aayadda 23 waxay leedahay idinka mar kale laydinkama dhalin abuur baaba-aya
laakiinse waxaa laydinku dhalay abuur aanan baaba'ayn oo ah ereyga ilaah ha nool oo waara. yacni adiga waxaa tahay mid aan ka dhashay ereyga ilaah ha nool oo waara. midda labaad waa inaa ogaataa inaad tahay abuur cusub. haddaan fiirino Korintoska koobaad Korintoska labaad 5:17 Korintoska labaad 5:17 wuxuu leeyahay sidaas daraaddeed haddii qof masiixa ku jiro waa abuur cusub oo waxyaalihii hore way idlaadeen bal eega wax waliba way cusboonaadeen. marka masiixa marka aad u timaado oo aad masiixa soo gasho diin ma soo gelin laakiin aad masiixa qalbigaaga ka aqbasho waxaa noqonaysaa abuur cusub mid mar labaad ka dhashay xagga ruuxa ayaa noqonaysaa. haddii aan fiirino midda saddexaad waxaa tahay mid dembiyadiisa lagu cafiyey oo lagu dhaqay dhiigga masiixa. yacni waxa dhimashada noo keeno waa dembiga. sidaa u og tahay iimaankaaga marka aad masiixa u imaanayso waa inaad ku aamintaa in dembiyadaada cafinteeda uu asaga yahay, in hadiyada ilaah noo soo diray oo dembi dhaafka ah uu asaga yahay, inaad qaadatay hadiyadaas ilaah kaaga timid oo dembi dhaafka ah oo masiixa ah. muhiimadda ah inaad aaminto inuu dembigaaga asaga qaaday, inuu ku siiyey nolol weligeed ah. midda labaad marka midda saddexaad aan fiirino dembiyadeenna waxaan nahay kuwo dembiyadooda la cafiyey oo lagu dhaqay dhiigga masiixa. marka aayadaha aan ka arki karno waxay tahay haddaan fiirino Efesos cutubka 1 aayadda 7. Efesos cutubka 1 aayadda 7 waxay leedahay isaga sida ay hodantinimada nimcadiisu tahay waxaynu dhiiggiisa ku leenahay madax furasho ah dembi dhaafkeena. marka dembi dhaafka uu na siiyey waa nicmadda ilaah. nicmadda dhiiggiisa waxaynu ku leenahay waa hodantinimada ilaah. ayuu leeyahay isaga sida ay hodantinimada nimcadiisu tahay waa nimcada oo qaniga ah oo ilaah leeyahay waxaynu dhiiggiisa ku leenahay madax furasho ah dembi dhaafkeena. marka waa inaan ogaanaa in dembiyadeenna lagu cafiyey dhiigga masiixa. waxay ka mid tahay iimaanka asaasiga ah oo masiixiga ah. marka iimaankaaguna waa ogaashaha inaad ogaatid midka aad tahay mid dembigiisa lagu cafiyey dhiigga sayid ciise masiix. haddii aan fiirino cibraaniyadda cutubka 9 aayadda 14 waxay leedahay intee ka badan ayuu dhiigga masiix kan ruuxa weligiis ah isugu bixiyey ilaah isagoo aan eed lahayn niyadiina ka nadiifin kara shuqullada dhintay si aad ugu adeegtaan ilaaha nool. marka wuxuu noo sheegayaa dhiigga masiixa in uu niyadeenna ka nadiifinayo shuqullada dhintay ama waxyaalaha dembiga evil conscious ayuu dhahayaa ingiriiska. uu ka nadiifinaya gudaheenna yacni waxyaalaha gudcurka ah oo ku jira oo shuqullada dhintay ah sida masayrka, xumaanta, xasidnimada, xanta, waxyaalahaas shuqulladaas dhan shuqullada ilaah ma ahan. laakiin dhiigga ciise masiix uu shaqaynayaa wuxuu qalbiyadeenna ka nadiifinayaa shuqulladaas dhintay si aad ugu adeegtaan ilaaha nool. haddaanan nalaga sifaynin waxyaalahaas yacni ilaahay run uguma adeegi karno. laakiin waa inaan ogaanaa in dhiigga ciise masiix uu yahay dhiigga dembiyadeenna dhaqaaya oo na nadiifinaya inuu yahay. marka haddaa aan fiirino aayad kale Colossian
Colossian cutubka koobaad aayadda 14 Colossi Colossey cutubka koobaad aayadda 14 waxay leedahay kaas oo aynu ku leenahay madax furasho ah dambi dhaafka waxaynu masiixa ku leenahay madax furasho ah dambi dhaafkeena marka qofka aad masiixa ku tahay waa ina ogaataa in dambiyadaada lagu cafiyey dhiiga masiixa waa ka midka aad tahay mid dambiyadiisa lagu cafiyey dhiiga masiixa ayaa tahay waxaa tahay mid mar labaad dhashay oo xagga ruuxa ka dhashay waxaa tahay mid ka dhashay miro aanan baaba'aynin ka dhashay ereyga ilaaha nool oo ah miraha waara waa taas inaan qalbiyadeena ku hayno oo aan ogaano oo aan iimaan ku qabno midda afraad waxaa tahay guri ayaa ruuxa quduuska u tahay guri ilaah ayaa tahay qalbigaaga ayuu ilaah ka dhiganayaa guri haddaan fiirino Korintoska koobaad 6:19 Korintoska koobaad 6:19 wuxuu leeyahay ama miyaydan ogeyn jirkiinu inuu yahay macbadka ruuxa quduska ah ee idinku jira ee aad ilaah ka hesheen oo idinku isma lihidiin marka wuxuu ku leeyahay waa ina ogaataa soo ma ogidiin ayuu ku bilaabay ama miyaydan ogeyn jirkiinu inuu yahay macbadka ruuxa quduuska bal ka waran awal macbadka wuxuu ahaa meel go-an oo derbi la dhisay oo Jerusalem ku yaala oo dadka ay u tegi jireen ilaahay inay dambi dhaaf ku weydiistaan waxaa imaan jiray xuduurka rabbiga ama presence of God taas hadda maanta kama hadlayno laakiin macbadku wuxuu ahaa guryo la dhisay oo outside adiga dadka ka ah oo ay u tegi jireen dambi dhaaf laakiin maanta waxaa noqotay adiga guri ayuu ilaahay kaa samaystay qalbigaaga ayuu ka dhigtay meel uu ruuxiisa quduuska ah soo dego marka waa inaad ogaataa marka midka aad tahay bal ka waran haddaa aad wiil boqor tahay oo aadan ogeyn midka aad tahay qofka aa u dhalatay waxa aad dhaxal u leedahay haddaadan ogeyn ka waran marka waxa waaye masiixa markaa u timaado waa inaa aan barannaa midka aan masiixa ku nahay marka midda kale oo aan rabo inaan ka hadlo oo shanaad waxay tahay waxaa tahay mid laga soo furtay xoogga gudcurka loona bedelay boqortooyada ilaaha nool haddii aan fiirino Colosey 1:13 Colosey 1:13 wuxuu leeyahay isagu waa inaga samata bixiyey xoogga gudcurka oo wuxuu inoo bedelay boqortooyadii wiilka jacaylkiisa marka annagu waxaan nahay kuwa laga soo furtay xoogga oo laga soo samata bixiyey xoogga gudcurka dunidan laba boqortooyaa jirto boqortooyada gudcurka iyo midda iftiinka ah oo ah midda ilaah uu masiixa ka yahay boqor marka adigu waxaa tahay mid laga soo furtay xoogga gudcurka ilmihii iftiinka ayaa tahay waxaa qoran isagu waa inaga samata bixiyey xoogga gudcurka oo wuxuu inoo bedelay boqortooyadii wiilka jacaylkiisa boqortooyadii masiixa ayaa naloo bedelay
aan hoos joognaa taas ayaan nahay way fahmaysaa because dhiigga masiixa ayaana lagu dhaqay oo dembiyadeenna lagu dhaqay marka shanta waxyaalood aan maanta sheegay waxay tahay inaad tahay mid ka dhashay miro aanan baaba'aynin ya oo ah ereyga ilaaha nool inaad tahay mid ah abuur cusub oo qof hadduu masiixa ku jiro waa abuur cusub oo aayado kale waxaan ku arki doonaa inuu masiixa kuwii aqbalay asaga wuxuu awood u siiyey inay noqdaan caruurta ilaah inaad tahay mid dembiyadiisa lagu mayray dhiigga sayid ciise masiix oo ilaa haddana oo qalbiyadiisa dhiiggaas uu ka safaynayo wax walba oo shuqullo dhintay ah shuqullada dhintay waxaa laga wadaa waxyaalaha dhimashada dadka u kaxeeya okay midda afraad oo aan idinla qaybsanayo maanta waxay tahay inaad tahay guriga ruuxa quduuska ah oo jirkaaga uu yahay guri uu ruuxa quduuska degan yahay ka waran marka oo lagu yiraaho ilaah ayuu guri u yahay qalbigaaga soo qalbigaaga waa inuu daahir ahaadaa qalbigaaga waa inuu ka nadiifsanaadaa waxyaalaha yacni sharta ah oo dhan jirkaaga waa inuu daahir ilaah u ahaadaa because privilegeaba lagu siiyeyba waxaa lagu siiyey heer aad noqoto macbadka ilaah taana waxaan ku helnay waxay tahay masiixa midda afraad inaa ogaatid in lagaa soo furtay xoogga gudcurka oo boqortooyada wiil iftiinka aad u timid wiilkiisa boqortooyada jacaylka inaa soo gashay iftiinka inaa soo gashay mugdiga ka timid oo shuqulladii mugdiga lagaa soo waday xoogga oo dembiga kuu kaxaynayay oo kaa adkaa oo ku dhibayay in lagaa soo furtay ka waran haddii qof inta la furo oo isku maleeya weli inuu meesha ku xiran yahay awoodda ku xirneyd haddii laga furo ka waran maroodi lugta ka xiran haddii sanayaal meelan ku arkaa u malaynaa sanayaal soo ugu xirnaa oo meesha u joogay xataa lugaha marka laga furay stiil meeshi ayuu taagan yahay because stiil maskaxdiisa waxaa ku jiro inuu xiran yahay laakiin ogow adiga in xoogga gudcurka lagaa soo furtay xoogga dembiga in lagaa soo furtay xoogga xumaanta iyo sharta in lagaa soo furtay xoogga dunidan sharta ah in lagaa furtay oo laguu bedelay wiilka boqortooyada wiilka jacaylkiisa marka waxaan ku leeyahay aan kugu dhiirigelinayaa walaalkay masiixiga ah kuwa rajadoodu ay masiixa tahay inaad ogaataan kulligeenna wada ogaano kii shaqo wanaagsan inagu bilaabay isaga ayaa dhammaystiri doona isagu waa aamin kuwa u yimid wuxuu u ballan qaaday I never leave you I never forsake you weligay kaama tegi doono kumana dayrin doono ya waa inaa ogaataa in uu asaga faithful yahay mid aamin ah uu yahay uu kula jiro ana wuxuu dhahay waa idinla jiraa ilaa adduunka geeskiisa waxaasna waxaa ku heshay waa jacaylka ilaah kuu qabo ilaah wuu ku jecel yahay ilaah lagaagama tarjumayo adiga ayuu ku jecel yahay asaga ayaa ku soo watay asaga ayaa wax wanaagsan kugu dhex qaban doona yunan guilt iyo shame maxaa la dhahaa shalay iyo niyadjab iyo xumaan yaysan gadaal kuu celinin dembiyo aad soo samaysay yuunan maskaxda kaaga xirnaanin ha u malaynin inaad ku xiran tahay inuu dembiga kaa awood badan yahay adiga ayaa dembiga ka awood badan boqortooyada gudcurka inaad ku jirtid ha u malaynin boqortooyo ilaaha lagu keenay jirkaaga waxaa laga dhigay jir ruuxa quduuska ah uu dhex joogo ruuxaas oo quduuska ah oo lagu dhahayo wuu kugu jiraa oo hadiyadda lagu siiyey oo ilaah uu kugu siiyey masiixa waa ruuxa ka sara kiciyey yasuuca almasiix min alamwaat dhimashada kan ka soo sara kiciyey ciise masiix waaye
marka adduunyadu waxay ina bartaa ina ayaa tahay qolamaa tahay yaa u dhalatay familkaaga ma famil lacag qabaa ma famil faqiir ahaa intee ka shaqaysaa ma waxaad qaadatay master degree mise PhD ayaa qaadatay waxbarashadaada heerkay gaarsiisan tahay halkee ka shaqaysaa ma madax baad tahay waxaasoo dhan way idlaadeen markaa masiixa u timaadid waxa aad tahay wiilka waxaad tahay wiilka ama gabadha ilaah waxaad tahay ilmihii boqorka waxaad u timid boqortooyada aan dhammaanaynin ee ilaah marka waa isla sii baran doonaa yaan ku nahay masiixa maalmaha soo socdo rabbiga ha idin barakeeyo nabadiisa iyo jacaylkiisa iyo farxaddiisa ha idinka buuxiyo waa hoob abuukar oo idin leh kulan dambe iyo yaan ku nahay masiixa